بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرضي كسر دواء عشر كتضباط chapter كسجالات وإنه هدي الله يدمكو برندونه posting business transactions سيلو post جريو أما لوجو جرو transaction كسيلو لوجو جرو ledger كا أما بوج لو يغانو ledger كا سيد عادي كان عشر كان مركو دماغه أرضي جوح أود يلندونه إنه شرحه process كلامره posting مركب posting لسماينيو process ka la maro inuu ardaygu sameeyo oo dhiso formatka uu yeelanayo ledger account-ku ama ledger account ama account-ka ledger-ka kamid noqonaya formatka uu yeelanayo iyo sidoo kale inuu transactions-ka geliyo ledger inuu geliyo ama ledger account inuu geliyo sidaan hore u soo baranayba transactions-ku marka ay dhacaan saddex step ayaynu mari jirnay stepta hore soo analyzing stepti labaad oo journalizing oo casharka hadda ku xigay aynu ku soo baranay iyo stepta hadda ugu dambayso ah postingkii oo ah inaynu transaction gelino journalka waxaan leenahay posting waa maxay casharkeena maanta marka wuxuu ku saabsan yahay posting waa maxay posting waxaan leenahay waa process of transferring the debit and credit items from the journal to their respective accounts okay waa processka looga qaado akoonnadii ama itemskii debitka iyo creditka noqday looga qaado journalka ama buugi journalka loo oran jiray loona geliyo akoonno u gaar mid walba sida caadiga marka aynu sameynayno postingka waxaynu sameynaa item walba ama shay walba aynu journalka ku soo list gareynay waxaynu u sameynaa hog gooni ah ayaynu u sameynaa oo aynu ku ridno hogtaasna waxa loo yaqaanaa account ama ledger account-kaasna xogta shayga la xiriira kaliya ayaynu ku qornaa laba dhinac ayuu leeyahay ledger account dhinac aynu ku qorno hadduu siyaado dhinac aynu ku qorno hadduu yaraado waxaan leenahay marka accountiska waxa la isku aruuriyaa buug loo yaqaano ledger marka ledgerku ma aha wax la sawiro laakiin waa buuga isku geynta akoonnada oo dhan ayaa wax la isku yiraahdaa ledger haye waa maxay ledger marka waxaan leenahay ledgerku waa dhammaan isku geynta akoonnada shirkadda u fudho dhan marka meel isku geeyo ayaa waxa loo yaqaanaa ledgersku waxay leeyihiin types ama noocyo leeyihiin waxaana ugu caansan sales ledgerkii oo lagu diiwaan geliyay waxyaalihii deyntaha credit saleski lagu diiwaan geliyo wuxuu ka kooban yahay akoonnada customer-ka sida maxaan ku raadayay debtorkii oo kale ama trade receivable-kii oo kale purchase ledger oo lagu diiwaan geliyo deymaha lagu diiwaan geliyo wuxuu ka kooban yahay supplier accounts-kii akoonnadii hoostigii qofka supplier-ka sida ama qofka alaabta ka soo qaadatay akoonnadii loo furayay sida creditor-kii oo kale general ledger oo lagu diiwaan geliyo dhammaan wixii ka soo haray intaas iyo cash book oo lagu diiwaan geliyo wixii bangi iyo cash iyo banki mara ama wixii rasiida lacag la helay iyo lacag la bixiyay cash book waxaan leenahay journalna waa yahay ledgerna waa yahay marka inagu waxaynu ka qaadan doonaa waxa loo yaqaan general ledgerka ayaynu qaadan doonaa dhammaanna waxaynu samayn doonaa akoonnadeena general ledgerka ayaynu geyn doonaa sida caadiga markaynu ka hadlaynana wax ledger oo sawir oo aynu isticmaali doono ma jirno oo la dhigi doono kaas waa general ledger laakiin akoonnada ayaynu u baahannahay waxaynu u baahannahay waxa weeye waa akoonnada hoostaga ledgerada marka dhammaan akoonnadii oo dhan ayaynu furan doonaa haddii rabidno inagoon u fiirinayn ledgerka hoostagaan akoonka ledgerka hoostaga waxaan leenahay transaction walba oo dhaca wuxuu u baahan yahay akoon in loo sameeyo transaction walba oo dhaca wuxuu u baahan yahay ugu yaraan laba akoon in la geliyo labada akoon marka waxaan leenahay akoonnada waxa loo kala qaadi karaa noocyo loo kala qaadi karaa waxa noqon karaan personal accounts waa akoonnada shakhsiyaadka loo furo qof deyn ka qaatay iyo qof aad u deyn ka soo qaadatay iyo impersonal accounts akoonnada loo furo ashyaada ama shayaasha loo furo waxaana kamid ah akoonnada ashyaada loo furo akoonnada nominal accounts waxa leeyahay akoonnada kharashka iyo dakhliga ku soo galay kharash ka baxay akoonnada ayaa magacaas la isku yiraahdaa nominal accounts real accounts waxa la isku yiraahdaa akoonnada wax lahaanshaha ka soo qaad fixed asset ko kale ama asset marka iibsatid oo kale akoonnadooda waxay hoos tagayaan waxa loo yaqaan real accounts ay noqonayaan inta badan nominal accounts waa akoonnada sanadka markuu dhamaado aan dib dambe marka loo furayn haduusan soo laaban halka real account-gu yahay akoonka mar hadaaba furtidba haduusan xirmin aad sii wadanaysid oo sii socod tusaalahan hadii aan lacag furo cash account furano oo akoon lacag furano akoonkaas lacagtu uu sii shaqeynaya way noo sii shaqeynaya ilaa laga gaarayo markii zero uu noqdo oo labada dhinac isla kaadaan oo la iska xiro okay ledger account-ku waxaan leenahay formatkan ayuu leeyahay sida caadiga laba column baan u qaybinaa
dhinac laba dhinac baan u qaybinaa dhinaca bidix oo debitkii iyo dhinaca midig oo creditkii yahay dhinac kastana waxaan u baahanahay saddex xogood inaan ku qorno kow date-ka transaction ku dhacay description la xiriira transaction kaas iyo amount-iga meesha u koreysana waxa lagu qorayaa title-ka marka labadan dhinacba waa isku mid waxa lagu qorayo sida caadiga ah T account ayaynu isticmaalnaa oo qaabka T account-iga ayaynu isticmaalnaa siyaalo kala duwan 3 column baa jira mid loo yaqaano oo balance-iga lagu soo daro asagana way jiraan standard kale ama qaabab kale badan oo loo sameeyo way jiraan waxa kale oo sameyn kartaa adoon T account ka dhigin ayaa hal dhinac waxa marin kartaa amount-igi iyo description-ki iyo wixii la midka ah amount-iga marka laba uu si kala qaadaysa wax dhigi kartaa debit iyo credit ayaa uu si kala qaadi kartaa laakiin formaatkan ayaa fudud T account-iga aynu isticmaali doono posting procedure fudud ayaynu samayn doonaa marka arday walba soo u fahmo sida posting loo sameeyo journal ayaynu ka samayn karnaa sidoo kale posting waxaynu ka samayn karnaa directly ayaynu transaction uga samayn karnaa laakiin hadda maadaama posting aynu baranayno sida journalka looga sameeyo ayaynu baranaynaa okay casharada soo aadanna waxaynu baran doonaa sida directly loo sameeyo iyadoo journal la marin waxa leenahay ka soo qaad waxaynu haysanaa journalkan shirkadeenu ay haysato waxay haysataa cash iyo capital waa hal entry weeye entry-gan marka waxay u baahan tahay in item walba kamid ah entry-ga loo sameeyo account gooniya waxaan sameynaynaa marka kow maxaan sameynaynaa waxaan furaynaa account baan furaynaa account-ka hadda T account-iga sida taadibu u sameeyay yahay T account baynu isticmaali doonaa labada dhinacna bidix baa leeyahay dhinacna midig baa leeyahay dhinaca bidixda waxa lagu qoraa yani waxba lagu qoraa saddexdii xogood aan soo arkinay ayaa lagu qoraa dhinaca midigtana waxa lagu qoraa saddexdii xogood aan soo arkinay marka aan account-ku furo marka maxaan sameynayaa waxaan sameynayaa item-ka magaciisa ayaan soo qaadayaa cash oo kala waan soo qaadayaa meeshii title-ka loogu talagalay ayaan dhigaya waxaan leeyahay marka account-kani wuxuu ku tacaluqaa cash way okay waxaan soo qaadanayaa marka saddexdii xogood maxay noqonayaan kow date-kii baan soo qaadanayaa waxaan dhigayaa meeshii aan ugu talagalay date-ka oo aan format ku soo aragnay waxaan soo qaadanayaa account-kan saameynta ku yeeshay ka kale yani account-ka aan qaatay magaciisa maana account-kii kale saameynta ku yeeshay ayaan soo qaadanaya waxaan dhigayaa meeshii description-ka loogu talagalay fiiri markaan cash soo qaatay maxaan soo qaatay capital waxaan leenahay cash baa ina soo galay cash-kaasna wuxuu ka yimi mulkiilaha waxaan kaloo soo qaadanaynaa lacagtii oo ah debit gashay saa darteed waxaan leenahay transaction-kaas qaybtiisii koowaad waynu xaraynay yani entry walba waxay ka kooban tahay laba qaybood qayb walba waxaan u sameynaynaa account gooniya item walba waxaan u sameynaynaa account gooniya marka maxaynu sameynay waxaan sameynay account baan furnay date-kii baan gelinay description waxaan uga dhignay account-kan furaynay maahana kiisii kale ayaynu description uga dhignay okay kadibna waxaynu sameynaynaa account kale ayaynu furaynaa account labaad ayaynu furaynaa waxaan leenahay markaas hadda kii hore cash buu ahaa kan waxaynu ka dhiganaynaa capital baynu soo qaadaynaa waynu furaynaa waxaan leenahay yani account-kani waa capital kii hore wuxuu ahaa cash kana waa capital saa darteed waxaan leenahay intii kale aan soo qaadanaynaa waxaan soo qaadanaynaa date-kii transaction ku dhacay waxaan soo qaadanaynaa description-kii oo ah account-kii kale saameynta ku yeeshay iyo amount-igii oo ah inta uu credit-ka noqday marka labadii transaction waa sameynay debit-kiina waxaan gelinay xogtaas credit-kiina waxaan gelinay xogtaas waxaan inoo soo baxay markaas inaynu saa u post gareeyno posting marka waxa weeye inaynu account-ka geeyno marka account-nadan marka aad furtid waxa la isku hal book bay ka wada tirsan yihiin book ay ka wada tirsan yihiin ayaa waxa loo yaqaanaa ledger ama ledger book general ledger-ka ayaana ugu caansan buugaagta la isticmaalo okay example baynu sameynaynaa waxaynu sameynaynaa waxa la siinayaa journalka la siiyay ayaynu waxaynu ka post gareynaynaa yani xogtii inagoo account furayna oo isticmaalayna sabuuradda okay marka journalka waa kan journalkii mar hadduu kan yahay waxa la siiyay waxaan u baahanahay entry walba inaynu ka shaqeyno okay entry walba inaynu ka shaqeyno ayaynu u baahanahay sidaa darteed waxaan leenahay entry-ga u horeysa waxaanu qaadanaynaa 1 August 2018 account-ka u horeeya muxuu noqonayaa arday waynu fahmaa waxaan qaadanayaa description-kan tagaya item-ka u horeeyaan qaadanaya waxa leeyahay account-ka u horeeya wuxuu noqonayaa cash ayuu noqonayaa account-ka u horeeya waa cash okay waxaan rajaynayaa arday walba inuu arki karo cash-kaas marka maadaama account-ku uu cash yahay waxaanu leenahay xogtii baynu ka qoraynaa debit waxa kaga jira 10,000 xogtii dhan baan ka qoraynaa waxaan leenahay
agosto kowdeedii agost kow bay ahayd akoonkaasna waxaa galay lacagtii waxay ahayd 10,000 meeshan descriptionka ugu talagalnay waxaan ku qoraynaa akoonka kale saameynta ku yeeshay oo ah capital waaye sidaa darteed waxaan leenahay transactionka qaybtaas waynu diiwaan gelinay transactionka qaybta labaad waxaan samaynaynaa akoonkii kale aan furaynaa akoonkii kale ayaynu furaynaa waxaan leenahay akoonka kale magacii waa capital dhinacee wax ka galeen dhinaca creditka sidaa darteed waxaan leenahay waa agosto kowdeedii agosto waa kow akoonkana waxaa saameyn ku yeeshay waa cash lacagtuna waxay ahayd 10,000 intii baan soo qaadanaya waxaan ku xijinayaa transactionkaas waynu dhamaystirnay waxaan leenahay transactionka waan ka baxnay qaybtaas yani interiga waynu ka baxnay interiga labaad ayaanu imaanayaa waxaan leenahay agosto labadeedii weeye laba akoon baa meesha ku qoran mid waa van oo xaajiyadii ah ama gaarigii ah midna waa cash akoonka ii furan waan furayaa waan deysanayaa oo akoonka ii furan waa kii horaan isticmaalaya kan aan ii furnayna waan furanaya van tusaale ahaan iima furna sidaa darteed xaajiyadii halkan ayaan ka furayaa waxaan leeyahay akoonka aan furayo waa van okay akoonkan marka waxaan leenahay vanka debitka wax kaga jira 4,500 waxaan leenahay waa 2 agosto 2 lacagtaas waxay saameyn ku yeeshay cash ba saameyn ku yeeshay waxayna ahayd 4,500 okay akoonka kalena waa ii furan yahay waa cash waa ii diyaarsan yahay laakiin dhinaca wax kaga jiraan dhinaca debitka maana waa dhinaca creditka sidaa darteed waxaan leenahay agosto labadeedii maxaa dhacay agosto labadeedii waxaa dhacay waxa la soo iibsaday van ama xaajiyad ayaa la soo iibsaday waxayna ahayd 4,500 fiiri akoonka mar hadduu kuu furan yahay mar labaad ma furaysid sidiisba u isticmaalaysa maxaa inoogu xiga waxaanu transactionkaasna waynu dhamaynay waxa inoogu xiga transactionka saddexaad ayaynu ku xiga ama interiga saddexaad ayaynu ku xiga interiga saddexaad waxa la yiraahdaa furniture iyo guure ayuu kala yahay marka labada akoonba inooma furna labadaba waa furanaynaa waxaan furayaa akoonka la yiraahdo furniture ayaan furayaa oo ah debitkii kii debitka noqonayay hadda fiiriso waxaan leenahay akoonku agosto waa meeqa waa 3 agosto bishu waa 3 saameyntana waxaa ku yeeshay guure iska soo koobaya si business igu badbaado waxaan leenahay transactionkuna wuxuu ahaa 1,250 ayuu ahaa lacagtiisu okay sidoo kale waxaan furayaa akoon la yiraahdo guure enterprise ama waa supplier ama waa creditor whatever you waad u bixisid markaas waxaan leenahay marka maadaama uu creditor yahay guure wuxuu ka galayaan dhinaca creditka agosto waa meeqa bishu waa 3 waxaan leenahay transactionkiina wuxuu noqday yani furniture ayaa laga soo gatay guure ama waxa loo yaqaano guri bil ayaa laga soo gatay ama agabkaasoo lacagtiisu ahayd 4,500 transactionkaasna saas ayaynu ku dhamaynay waxa inoo ku xiga transactionka 17 ka dhacay ama waxa loo yaqaano interiga 17 ah interigaasna waxay noqonaysaa furniture iyo cash labaduba ku furan yihiin guure iyo cash sorry waxay noqonaysaa guure iyo cash labaduba inoo furan yihiin guure ayaa lacagtiisa la siiyay sidaa darteed wuxuu yaraanayaa 2,500 intuu nagu lahaa agostona waa 17 baan leenahay 17 lacagtuna waxay ku baxday cash waxayna ahayd 1,250 halkan aan saxno iga raali ahaada 1,250 waa gafnay okay 1,250 waa la siiyay cash baan imaanayna waxaan leenahay lacagtaas waxay ka baxday cashkii waxayna aaday guure waana 17 August weeye guure ayaa lacag la siiyay waxayna ahayd 1,250 okay transactionkaasna intaas ayaynu ku dhamaynay okay recordingkii ama postingkiina intaas ayaynu ku dhamaynay insha Allah taala casharka ku xiga waxaynu soo baran doonaa iyagoo dhameystiran oo fuula sida mataqaana loo post gareeyo sida transaction loo sameeyo analyze loo sameeyo transactionkii journal loo geliyo kadibna posting loogu sameeyo intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh